gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri oo ay weheliyaan maayirka degmada Burco boqorro salaadiin iyo waxgaradka deegaanka Baladhig ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha saldhig booliis ee degmadaasi. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri ayaa u mahad celiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Burco oo horkacaya duqa degmadu oo qayb door leh ka qaatay yeegleelida iyo dhagax dhiga saldhigani cusub. aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay eragii uu ka dhawaajay meeyarka magaalada Burco ee uu yiri cudda degan baloorka saldhiga bliiska Burcaan jaga ka siinaya anna waxaan leeyahay maantaan dhagax dhigaya. maayirka degmada Burco Maxamed Muraad ayaa isaguna ka codsaday qurbajoog iyo dadka deegaankani inay gamcaha isku qabsadaan horumarinta iyo magaaleynta degmadu waxay leedahay qurbajooga ugu badan qurbajoogyada Soomaaliland waxay leedahay waxaan oran karaa deegaanka ugu badan ama ugu xoolaa roolay ku jirta waxa aanu idin leenahay sida dhaqanku yahay waxa weeye degmada in wax loo qabto marka wax loo qabanaya sidee wax loogu qabanaya walaal uu gacanta taagtaa marka hore dhowr jeer hore halkan waani taliyaha qaybeedka biliska markii la keenay ee la soo bedelay halkan baanu keenay iyadoo aanu meel kale tagin halkaan ka soo wareejinay waxaan nimid dhoqoshay markaan Baladhig baan sii marayna waxba maanta waan ka codsanay. maayirka degmada Baladhig boqorro salaadiin waxgarad hadalka isaga daba maray ayaa amaanay maayirka degmada Burco naga jaray bay dhaheen kurbo dhulka laga dhisayo saldhiga naga haysatay maadaama ay degmadani baahi ballaaran u qabto waxaana ay xukuumadda iyo taliska booliska ka codsadeen in ciidanka loo soo kordhiyo. ciidankani booliska ee ka howlgala degmada Baladhig ayaa hore u isticmaali jiray xafiiska dawladda hoose kaasi oo ka howlgali jireen iyagoo si kaliya laaba u soo dhaweeyay dhagax dhigani. وعبد الساق فارح عبد الله تيفي قرك سوماليلاند برعو.